Caruuray ku soo dhawaada sheeko xariir cusub. Beri baa waxaa jiri jiray dawac. Caruuray dawacu waa xayawaan duurjoog ah, waxa uuna ugaarsadaa xayawaanada kale ee la dhaqdo iyo kuwa aan la dhaqan intaba. Haddana waxaa u sii dheer in uu u daaqsi tago beeraha. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa dawacii oo iska hayaamaya dul dhacay beer aad u baxday oo ay ka dhex baxayaan nooc walba oo geed mirood ah. Inta uu eegay ayuu waayay meel uu ka galo beertii. Niyadda ayuu iska yiri ibni aadan dhib badanaa. Beertii miraha quruxda badan ka baxay way awoodeen, halka kuwa aan waxba ka bixinna ay sii daayeen amaba ay fureen. Walle beerta meel uun baan ka geli doonaa, ayuu yiri dawacii. Sidii uu ugu dul wareegayay ayuu helay mar dambeeto meel uu ka geli karo, balse ah meel aad u yar sidoo kale tan cariiri ku ahayd. Gudaha ayuu u galay dawacii beerta. Marba sidii uu miro u cunayay ilaa uu gaaray heer calooshiisa ay noqotay mid xad dhaaf ah dhereg awgeeda. Wuu jeclaan lahaa in uu sii cuno miro aad u fara badan, balse waxaa u dayrisay tabartii. Ugu dambeyn wuxuu soo aaday amaba uu soo abbaaray halkii uu markii hore ka soo galay beerta, balse nasiib darro meeshii yareed oo cariiriga ku ahayd waa uu ka bixi waayay. Maadaama uu raashin amaba mirooyin aad u fara badan uu soo cuno, waxa ay ku noqotay mid cariiri ku ah uusan ka bixi karin marnaba. Dawacu waa mid caqliga saaxiib u ah. Niyadda ayuu iska yiri haddii aan meyd iska dhigo amaba wax dhintay oo kale sidee ayuu yeelayaa ninka beerta iska leh. Fikirkii ayuu qaatay dawacii, waxa uuna iska dhigay wax dhintay. Waardiyihii beerta ilaalinayay ayaa yimid aroor hore, waxa uuna arkay dawac dhintay. Waa uuna iska jiiday oo waxa uu ku tuuray beerta bannaankeeda. Dawacii qosol ayuu bilaabay markii uu ogaaday in caqligiisii uu ku soo bannaan baxay. Maalinka xigtay ayuu mar kale isla meeshii ka soo galay cariiriga ku ahayd. Mirihiisii ayuu iska cunay, mar kalena calooshiisa waa uu buuxsaday. Si la mid ah markaan haddana waxa uu ka bixi waayay halkii yareed uu markii hore ka soo galay. Waxa ayna ku noqotay meel uusan ka bixi karin. Qorshihii ayuu mar kale ku dhaqaaqay oo waxa uu iska dhigay wax dhintay. Isla maalinkii waxaa haddana u yimid waardiyihii oo mar kale bannaanka u tuuray, balse shaki qaaday oo ka shakiyay in beerta wax ay ka maqan yihiin amaba la cunay. Dawacu kama uusan quusan oo mar saddexaad ayuu soo noqday maalinkii xigtay. Sidii ayuu yeelay, halkii cariiriga ahayd ayuu ka soo galay beerta. Mirihii ayuuna u soo dhaqaaqay cunistooda isaga oo si xad dhaaf ah isaga buuxiyay, misena si fiican uga dhargay. Waxa uu ogaa inuu marnaba ka bixin markii uu dhargay meesha cariiriga ahayd. Sidaa daraaddeed qorshihiisii ayuu mar saddexaad ku dhaqaaqay fulintiisa oo waxa uu markaan iska dhigay wax dhintay. Waardiyihii ayaa u yimid dawacii xariifka ahaa. Markaan waardiyihii waxa uu dhahay, dawacan waa in aan iska duugaa meydkiisa, urkiisana aan god u qodaa. Sidaa daraaddeed waxa aan doonanaa qalabkii aan ku qodi lahaa godka oo aan ku duugi lahaa dawaca. Waa uu baxay waardiyihii oo qalab ayuu doontay. Dawacii ayaa maqlayay hadalka, sidaa daraaddeed meeshii dhan wuu isaga cararay oo beerta meel ka mid ah ayuu ku dhuuntay. 2 maalin ayuu ku dhuumanayay beerta dhexdeeda. 2 maalin kadib ayuuna ka soo baxay dawacii beerta, weliba isaga oo baahan. Markii uu ka soo baxay kadibna dib dambe uguma uusan laaban beertii. Caruuray waa naga intaa sheekadii.